السلام عليكم دعوة سو هذا جميلو واي أو إذا كسول لابتي صدق بلي جت بعدي الحمد لله وعافيمات طبعا أمجلس حالة دون استجري لكن أوكي إلهي مهديس مركا إن شاء الله هذا كبعد فيديوهات يوتيوب كان قلنا لكن فيسبوك أنا وسوق لنا سياد مشاس محيط يوتيوب كي أوارك تانا هدي على إدمو إن قضبة يرينا ربينا تعبتو أو ملينا إن يدك تعبانayaan hadda waxa ugu muhiimsan waxa waaye hay'adda immigrationka samaysa oo dadka fiisayaasha siisa process garaysa green cardada bixisa citizenka bixisa wax kasta oo socdaalka qaabilsan hay'adda qaabilsan waxa la dhahaa USCIS hay'addaas marka lacagteeda ma bixiso federal agency uu yahay oo waa dawladda dhexe ayaa muxuu ahayd wax ka tirsan waaye laakiinse waxa bixiya lacagteeda dadka u raadsada waxyaabaha ay bixiso sida kaba soo qaad haddii asylii tahay oo kale green cardkaaga oo kaleeto waa $225 lacag badan waaye kaba soo qaad citizenka oo kale waa $725 ay ku bixiyaan marka ayagoo kale maadaama ay u shaqeeyaan dad aan waddanka u dhalanin shaqadooda inta badan ee noocaas tahay lacagta dawladda ma siiso ayaga ayaa muxuu ahayd dadka ayay ka qaataan hadda kambanigii marka asagas nooceen hay'adda noocaas ahayd oo dawladda ka tirsaneed waxaa kasii dhammaanaya lacagta laba sabab ayay u dhammaanaysaa mid dad fara badan oo budgetkooda uusan aqbali karin ama qaadi karin xamili karin ayay qaateen kaba soo qaad budgetkooda $100 camal ah misaal ahaan leeyahay $100 ma aha budgetkooda waxay qaateen dad $200-300 camal ay ku baxayso marka lacag badan budgetka ay haysteen dhaqaalaha u yaalay iyo dadka ay qaateen isma laha waxaana sabab u ah dadka badan ay qaateen dawladda Donald Trump ayaa waxay samaysay in ay baaritaan aad u fara badan samayso isu dawladihii hore samayn jirin mar walbo immigrationka baaritaan aad u fara badan ayuu leeyahay laakiin ayaga awood aad u fara badan ayay saareen in baaritaan la sameeyo midda kaleeto COVID-19 cudurkan hadda socda asagana saameyn weyn ayuu ku yeeshay sababtoo ah adduunyadii dhan ayaa kala xirantay applicationadii 50% ama ka badan ayay hoos u dhaceen marka dawladdaas hay'addaas haddaysan dawladda kasoo gaarin ama wax kale aysan isbedelin muxuu ahayto shaqooyinkeeda aad ayay hoos ugu dhici doonaan oo applicationadii la sugaayay ama waxyaabihii ay qabanayso dadka badankiisa ay ka sugaan ana ogahay dadkanaga inay aad u saameynayso hoos ayay u dhici doonaan oo waqtigii afar jibaadkiisa ama ka badan ayay qaadan doontaa sababtoo ah lacag ay dadku qaataan ma haystaan waxay codsadeen congresska ayay ka codsadeen in lacag la siiyo looma soo jawaabin walito lacagtaasna ay dib u dhiibi doonaan oo ay deyn tahay ay kuna soo aruurin doonaan inay 10% kordhiyaan applicationka lacagtiisa sidaas darteed ay muxuu ahayto ku dhiibi doonaan lacagaha taasi waa mid qodobka labaad oo rabo inaan ka hadlo dawladda Donald Trump waxay samaysay waxay damceen isdhiibidda ama asayliga inay wax badan ka bedelaan waxyaabihii ay ka bedeleen waxaa ka mid ahaa waxay soo rogeen qodob kaba soo qaad waxa ka timid Soomaaliya oo kale wadankii meelaha ama Kenya meelaha ka timid meeshii ugu horeysay oo waddankaaga ka soo baxday aan lug soo dhigtay hadduu ka mid ahaa meelaha laga buuxin inaad ka buuxiso asayliga oo aadan sugin ilaa aad Mareykanka ka soo gaadho inta badan dadku waxay sameeyaan 100 waddan oo kala duwan ayay soo maraan meelo badan ay soo lugayaan dhib aad u fara badan ay soo maraan markaas ka bacdi ayay waxay sameeyaan markay imaanayaan ayay inta ka buuxiyaan marka qodobkaas ay soo rogeen way dhaqan galiyeen judge muxuu ahayd federal ayaa wuxuu yiri taasi waa wax sharci darro ah waddanka muxuu tahay asayligiisa amni gelintiisu saas looma samaysna mana samayn kartaan sidaas gadaal ayaa loo celiyay waxaa kaloo ayadana guula dadka waddanka lagu keenay ayagoo ilmo ah oo sharci la'aan ku yimid oo kale oo la dhaho dhaka ayagana maxkamadda sare ee waddanka oo muxuu tahay Supreme Court la dhaho ayaa ayadana celisay oo ka celisay dawladda Donald Trump waxay dhaheen hadda faraha ayaa laga qaadayaa sida ay hadda tahay laakiinse sida ay u xugmiyeen waa si hadhow
ay dowladda dib u soo laaban karto xukunka midna wuxuu yahay waa lagama laabtaan waa muxuu ahayd gadaal wax looga noqdo male xukunna wuxuu u furan yahay in la turjumo kale open for interpretation kan marka waxa waaye interpretation ayuu u furan yahay oo in gadaal laga turjumi karo sababtoo ah xukunka ay dhiibeen oo leeyihiin faraha laga qaado waxay ka dhiibeen midda ah in hadda dowladda sida ay rabtay inay u celiso aysan si toosan ahayn laakiin sharci ma yahay mise ma ahan wax go'aan ah taas lagama gaarin ayada midda kale waxaa gadaal u celin karta isla programka laftarkiisa homeland security-ga awood daaqad waxaa loo furay ah inay ayaga hadday rabaan inay gadaal u celin karaan guul waaye laakiin guul dhammaystiran maaha qodobka afraad oo muxuu ahayto raba inaan ka hadlo maanta ayaa wuxuu yahay waraaqa ayay soo diraan immigrationka USCIS-ka kaba soo qaad haddii aa codsatay oo kale sharci wax kaa dhiman yihiin oo kale waraaq waxay jiraan la dhaho RFE waxa waaye request for evidence caddayn dheeraada ayaan u baahannahay oo kaleeto ama waqti ayay sii qaadan doontaa oo kale ama waxaan soo wadnaa inaan ku diidno oo kale 30 maalmood waxay siiyaan waraaq la dhaho waxay dhiibaan notices of intent to deny waxaan damacsana ogeysiiska damacsanaanta ah inaan inkiri rabno oo ku diidi rabno marka way ku sheegayaan sababtay u diidi rabaan 30 maalmood ay waraaqahaas inta badan leeyihiin 30kaas maalmood haddaa soo xalisa sababtay u diidi rabaan inay applicationka faraha ka qaadaan oo approofaan oo sii daayaan ayay u badan tahay waraaqahaas oo kale marka iyo waraaqaha raxfaanka lagu qaato oo kaleeto oo applicationka la dhaho entry 36 oo kale kaasna waa mid kaleeto iyo applicationada ayaga midkoo kaloo asna waxaa jira la dhaho I-290B kuwaasoo dhan muxuu ahayto waqti ayay lahaan jireen marka waxay badiyeen waqtiga kaba soo qaad July 5 aa lagaa rabay ilaa 60 maalmood oo July 5 ka dambeyso go'aan ma gaarayaan waxay ku siinayaan 60 maalmood oo dheeraada 2 bilood oo dheeraada awal waxay samayn jireen 30 maalmood gudahooda ama ka yar sometimes even week gudahiis ayay muxuu ahayd ay go'aanka ku gaari jireen ay ku soo celin jireen waraaqaha marka hadda waxay ku soo dareen arrinta ah inay dadka siin doonaan waqti 60 maalmood oo dheeraad ah waqtiga laga rabay hadday waraaqda 60 maalmood xagga u dhaafto inay 60 maalmoodkaas ku sugayaan aysan go'aan ka gaaraynin wixii ay kaa sugayeen laakiin 60ka maalmood hadday xagga u dhaafto go'aankii ay damacsanaayeen inay gaari doonaan kaba soo qaad 30 maalmoodaa dhaaftay wixii lagaa sugayay ayadoo 30 maalmood ay waqtigii la dhaafay oo July 5 ahayd August 5 la maraayo oo kale August gudaheeda oo kale haddaa u dirto waraaqahaaga way kuu shaqaynayaan wixii lagaa rabay sidii lagaaga rabay haddaa u dhammaystirto oo kale kuguma xugminayaan way soo dahday taasna wax ay ka bedeleen intaas ayaan rabay inaan maanta ka hadlo kheer fara badan ayaan idin rajaynaya asalaamu calaykum